inaad se isu diyaarisa ma isdiyaarisan ma isku diyaarisan inaad noqotid xaas wanaagsan haddaa isku diyaarisay xaas wanaagsan ma ka fiirsatay qofka aad nolosha la wadaagaysid muxuu noqonayaa ma ahan adiga bas inaad isdhistid anigii waa isdiyaarshay waxaan isku diyaarshay xaas wanaagsan inaan noqdo laakiin yaa la qaybsanayaa nolosha hadduu noqdo mid aan waxbaba ka aqoonba nolosha anigu waan aaminsanahay see la iga rabaa inaan nolosha wax uga bara asaga waayo laba qof oo kasta oo isku timaada ma ahan micnaheeda inay laba qof oo kasta wax kasta ay qofka kale ka raba inuu ka helay laakiin wixii haddii aniga la iga helay asagii ay ka maqan yihiin see u bari karaa inuu asagii waxa aan ka raba isiiyo waxay ka mid tahay xaas wanaagsan sababaha ku noqonaysid ma ahan xaas wanaagsan markaa ku leeyahay keliya inaad tiraadid yacni ninkii jeclow waad jeclaanaysaa laakiin qaabkee u jeclaanaya qaabkee uga keensanaya anigana jacaylku asaga aan ka mudnaa saan ogsoonahay allah subxaana wa tacaala wuxuu isu abuuray ilaahay wax kasta markuu abuurayay wuxuu ka dhigay lab iyo dhadig ilaahay markuu aadan abuuray wuxuu ogaaday inuusan aadan noolaan karin xaawo la'aanteed markii xaawiya aadan adduunka la keenay oo allah subxaana wa tacaala wax kasta uu bilaabay inuu ilaahay keeno adduunka wax kasta ilaahay uu adduunka keena lamaanihiisi baa la socda that means ma ahan ragguna inay noolaan karaan gabdhaha keligood gabdhihiina ma noolaan karaan raggi la'aantood waa la isu baahan yahay allah subxana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wamin aayaatihi ana khalaqakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan waraxma ina fii dalika laaaayaatin liqowmin yatafakkaruun wuxuu idin sheegay allah subxana wa tacaala markuu noo midna sheeganayo ilaah oo intuu waxyaabo kastana tuso wuxuu ku leeyahay bal fiiri calaamad miyaysan idin ahayn inaan isu abuurnay ragga iyo dumarkii maxaad isugu abuurtay allah subxaana wa tacaala ma isweydiisa allah subxana wa tacaala wuxuu iskugu abuuray ragga iyo dumarka litaskunuu ilayha inay isku xasilaan inay isku degaan kadibna galgacayl iyo naxariis inay dhexdooda ilaahay uu soo dhex dhigo saan ogsoonahay annaga soomaali markaan nahay culturally guurka waan guursanaa laakiin micnihiisa muggiisa weyn ma fahansanin guri kasta waa dhisan yahay laakiin gudihii buu ka ololayaa waxaad arkaysaa gabar qurux badan iyo wiil qurux badan oo markay aragta aad isleedahay wallaahi way isu qalmaan labadan maasha allah laakiin markii aad la fariisatay daqiiqad ka mid ah markaad aragtid dhibka ayada ay sheeganayso ama dhibka asaga uu sheeganayo guurkii dhan baad nacaysaa marka guurkeena maxaa naga haleeyay ma isweydiina 25 sano dalkeena Soomaaliya uu burbursan yahay ma dhisna sababta koowaad uu dhismi la ayaa waxa kamid ah faamiladii baan dhisnayn qabiil intaadan fiirin ha aadan qabiil ha aadin reer hebel baa wax sameeyay laakiin waa inaad tiraahdaa gurigii horta aan ka soo baxay aniga ahaantay shakhsinimadayda gurigii aan ka soo barbaaray guri see abu ahaa gurigii aad ka soo barbaarto aad ka soo baxday ganjeelka iridka aad ka soo istaagtay qaabkii uu ahaa baad banaanka iyo bulshada kula dhaqmaysaa hadduu ahaa guri violence oo markasta dhibaato ka dhex taagan tahay oo markasta muran ka dhex taagan yahay oo hooyada iyo aabihi markasta is haystaan oo faamilku isan ahayn faamil isku duuban banaanka markaad timaado ma taqaana dadka sida loola dhaqmo waayo background-kaaga wax ka khaldan yihiin marka waxaan rabnaa inaan sheer gareeno maxaa ninka looga baahan yahay maxaa sanaagta looga baahan yahay gabadha looga baahan yahay afwan ninka iyo gabadhiisa xaaska waxaa looga baahan yahay kow qofba qofka kale saan idin sheegay qofba qofka kale inuu priority-ga siiyo marka ninkaaga priority-ga siisid yacni qofba qofka kale inuu ka dhigo qofkiisa koowaad haddii aad ninkaaga muhiimadda siisid waxaad ogaataa gabar yahay adigana inuu muhiimadda ku siinayo laakiin saan ogsoonnahay muhiimadda waxaan siinaa asxaabta xaajigii baa jooga gurigii buu jiifaa ma kala jecelin bannaankan gabdha la fadhiyaa xaafad heblaayaan qaraabo kiila u aaday asxaab haddii la ii yimaado asagii korkiisa ma kala jecel albaabka usoo riix baan leeyahay kow waa inaad asaga muhiimadda siisaa priority-ga koowaad markaad asagii muhiimadii siisid kadib adigana muxuu ku siinayaa muhiimadiisa saan ogsoonnahay allah subxaana wa tacaala rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi addunya mataac
فإن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا دو راحة لكن هي راحة أتها waxa ugu qofka ugu khayrka badan oo adduunku raaxaysto waa qofkii hela haweeney wanaagsan. waa meesha hada Englishka aan ka dhahno Englishka marka la fiirinayo every successful man there is a behind of woman. nin kasta oo guuleysta waxa ka dambaysa gabar. that means ninkaaga hadaad mar walba priority-ga koowaad siisid waxaad soo saartay aabihi carruurtaada. nin islaameed maadan soo saarin. guriga hooyada markaad joogtay wax kasta waa helaysa. maxaa uga maarmi weysa inaad guursatid? maxaa u soo raasatay inaad guursatid? haddaadan nolol isa siinayn asagii haddaadan siinayn asagina aadan ka keensan karin maxaa u guursatay gabdhayo? secondly guurka aan guursanno annaga Soomaali ahaanta wuxuu ku beesgaraysan yahay oo mar walba focuska u saaran yahay guur la dhaho inaan wax dhalo. هذا أنتي هذا أدين ويديو أنا لو محق جورسته جوابتك وضع السينس وحتى أولادنا هلا isn't it ولي ما إذا كنت تعجبركم فكرتوا ترنول في عم بعربا نول ونكسن بعربا نولش ونكسن سوي أكتر ما بنقانه أولاد إلهي باكين إمس أنت إسجورسته أولادنا سودالين ألف وألف كمانان ما أنا هدف كاجي إنها تكون حرتي مرة والبقى تجورسنيسد كو جرجاجة هوايدا مركا كبحيسد ما أنا نكا أنا أورع كلي أولاد بهربا أولاد إلهي باكوسين كرا أسار الزاقة أولاد إلهي باكوسين كرا لكن وأين ترى هذا مركا جورسنايو وحقو جورسنايا نولل في عن قف وناكسن إنا هلو وايو قفنا قف كلا جرب كيسا كمان مارمو ويلاش كمان مارنو gabdhaheena wiilashina naga maarmaan laakiin waxaan dhahnaa bariyahan waxa socota arin la dhaho wiilasha Soomaaliyeed romantic ma ahan. waxaan dhahnaa fiiriya maxaa dhahdeen wiilasha Soomaaliyeed romantic ma ahan. gabadh ila qabay ma ahan gabdhaha yarka soo kacay kelmadaas ila dhahayaan gabadh ila qabay maxay leedahay wallahi billahi nimanka Soomaaliyeed nolol ma leh wala iskala noolna awlaadaas dartoodan kula noolna isn't it macnaheedu ma ahan gabdhaha hadda soo kacay kaliya inaan ka hadlayo wartan la qabo waraysta maxay ku leedahay wallahi ilaahay ba awlaad iga siiya ma ahane awlaadaas dartiisa ula joogay ma bala joogeenba laakiin wiilasha maxay aad loo saaray ma is weydiiseen have you read yourself adiga ma is akhrisan horta wiilasha Soomaaliyeed romantic yaa ka dhigi kara idinka ka dhigi kara raga cadaanka ala tartamano aleenay nolosha wax ka yaqaanaan way fahansan yihiin fine okay separately as ahaan anaga Soomaali ahaan waxaan ku kala duwanahay koritaankeena horta run ahaantii markii laga hadlo markii la korinayay wiilasha iyo gabdhaha looma korin si cadaalad ah gabadhi baa dhibanayd gabadhi waxay ahayd yani qof mar walba u taagan reerka hanashadiisa ninka Soomaaliyeed horta reer hanashadiisa waxba kama yaqaan oo markaa guursanaysa taa ogo wuxuu yaqaanaa kaliya in la dhaho bariiska waa dhamaaday baastadan way dhamaato. secondly laakiin mid aan ku eedeena maxay tahay wiilasha Soomaaliyeed naxariisna ma siiyaan wiilasha Soomaaliyeed hadal fiican nagula ma hadlaan wiilasha Soomaaliyeed jacaylna ma siiyaan laakiin wiilasha Soomaaliyeed anaga jacaylka daanasan xagee buu jacaylka uga imaanayaa bay kula tahay markii hooyadii soo barbaarisay cadaalad darro ay ku soo barbaarisay adigii uu ku qabay markuu ku yimid oo aad albaabka inta u soo riixday aad gabdho banaanka sheeko ula fariisatay xagee uga imaanaysaa romantic inuu noqdo wiil Soomaaliyeed waa inaad priority-ga asaga siisaa marka hore si uu asagana priority-ga ku siiyo tan labaad oo mar walba aan sameyn Soomaali hadaan waxay tahay ninkaaga waxa uu jecel yahay mala jeceshaha ma interest garaysaa wuxuu asagana interest garayo absolutely no ninka Soomaaliyeed seebu ninka Soomaaliyeed interestigiisa markaas siisid buu wuxuu ku siinayaa adigana interest for example tusaale waxay jecel yihiin wiilasha Soomaaliyeed oo kale waxa laga yaabaa ninka ku qaba inuu jecel yahay inuu intuu habeenkii soo baxo markuu casheeyo soo baxo oo banaanka fadhiga soo fariisto oo feeling geysto ama ciyaar geysto ama some habits dabeecadaha qaar rag baa leh laakiin maxaa sameynaa
واسبوسنا أفكا تاجينا قل كتاجينا حنلاقيها نك ما تنسوي عشان السمينة والله بلا وحني يدي ما بوها يا مكان وحلاقيها بقى سجى إنترست جس إني هالكا شيء خرط جار ما قفك سوي جيدا كرتاه وح أوربا كاستمر كأسميس وحو جعلي أكو تاجر سو أكفر يسو مركو تي في قداره وعشيت وصباح وحلاقي من ده وحركت السويس إنه شاكيو إنه كل هذا سو أكفر يسو وحو داوني يلا داو بل هذا حين كعين ترتيبه حتى هذا وحن ميا جعلاتنا داوتي هذا مكلون أكسنتها حلاقيها بهبين نذ أهرية إنه سكول الكوب جوابه لكني مركز هبين بهبين كحجة هذا البنت أتمنى أترادي مو حدا ونسا برنامج كاجي معنى كده وحكون في الضانايا إن تقف كسو جلسة برنامج ما دام أديك أنا الربين سيدو كلاته نينك على مر والبا أبرشيشن مقصو بس يعني ما هاد عدسة ولي نينك ما هاد عدسة ما تري لا أنت هدانا كهلي لهين أديك وما لين ما يمانتهر كأنا جاري لها هذا هاد سنتها ولي عم يستري موسى وحير اسمه قلنا ان ما استري ولي قال يعني ما هاد علسه ما انت هيركا جارسيس انت اساك سو جارسيه سوما ان وحير hooyada gabadha soo gaarsiisay yani ayada still shizyag hooyada markay leedahay waxay ka hadashay hooyadeed laakiin ayada nafteeda caruurteeda wili kama hadleen hooyada way ku soo gaarsiisay saxiix maanta meesha Soomaali markii la dhaho 98 even 100% xitaa hadaan awoodin inaan dhaho 98 ama 99 waxaana soo saaray waa hooyooyin Soomaaliyeed waxa maanta garabkeena istaagay waa hooyooyin ma aan aabayaashan in laga waayay wixii looga baahnaa laakiin waqti baa la kulmay aabayaashan waxay awood u kari waayeen waxa jirta caafimaadka markii la baranayo xanuun la dhaho PTSD in badan waa laga hadlaa filaya waadna baran doontaan insha Allah PTSD du waa xanuun la dhaho post traumatic stress disorder waxa keena xanuunkaas qofka markuu violence dagaal markuu la kulmo qalbiga jabaya qalbiga markuu jabo himadii hadafka uu lahaa oo dhan waa burburaya hadafkii markuu burburo mas'uuliyadii iyo wixii laga baahnaa wuu ilaawaya even including himself naftiisa markii lagu daro aabayaasha Soomaaliyeed dagaal la kulmeen dib bay la kulmeen rafaad bay la kulmeen markii dawladda dhisneed ma jirin aaba saaqid ahaa ama qayr mas'uul ahaa laakiin dalkii iyo dagaalkii markuu burburay kadib aaba kasta muxuu noqday iska qayr mas'uul maxaa ku kalifay ma ahan ayaga inay xumaadeen aabayaasha waqti baa la kulmay alxamdulillah hooyooyin Soomaaliyeed waxaan filayaa run ahaantii وأن إنما أنا أمها ذعلين كرين والله العظيم هو يوينك الصوماليين وإحنا نقدين the heroes of the world جالسين تأدونك وأيو ضلشن إلا بعدين سنة بربرسن وما أنت ولي كنت لجر إنه اسمه وبت صاره وإحنا أراس كجر معنا والبا فرحات كجره وحكينا يا هو يوينك الصوماليين بمورال الهان نورسي إن هو يدي الصوماليين مركز كمان صبيح كرت واجب كأها إن عنو جادي سو كورسو at the same time إن عنو جتربية دي سئل على سو marka run ahaantii single maada iyo single father nolosha midna uma wanaagsana waxa garan karo qofkii ku soo koray kalinimo inay hooyada kaliya ku korsato ma helisid jacaylka waalidmaad u baahnayd inuu aabad kaliya ku korsadana sidoo kale ma helisid dadku waxay u qabaan hadii hooyada ala nooshay aabba ina ka maarantid laakiin ogaada aabba wuxuu leeyahay priority gooni oo Ilaahay ugu talagalay jacayl gooni uu leeyahay qofka maanta ku soo koray family buuxa hooyadiis aabihiis walaalihiis uu ka nasiib badan yahay qofka maanta hooyo kaliya korsatay ونا كفر حد بدنيا even moral أهان وكفر حد بدنيا وكأكتيف سيا وكوحجات بدنيا مركو أبياش لجمع مارمو هويو يمكن لجمع مارمو هوين Soomaaliyeed ayaga nokriya alxamdulillah appreciation marka ma usoo bisan nolosha aad u jeedinaada ka maarmin ninkaaga ma u mahad celisay mar walba aad kaliga tahay ama uu ku hor fadhiyo hadiyad ma uga dhigto inaad soo xasuusisid marka aad kaliga ahayd nolosha aad ku noolayd maanta nolosha iyo farxadda aad haysay ma uga mahad celisay ma tiri aadan kaaga mahad celinaya farxadda maanta ma bahelan run ahaantii markaad kelmadda ku tiraad ma ahan ina iska dhahaysid maxay u taraysaa asag ma isweydiis waxay u taraysaa dhiirigelin wuxuu mar walba ku haminaya inuu san ka fogaan qofkaas waayo wuxuu isu arkay inuu yahay qof wax bedeli kara wuxuu isu arkay inuu yahay qof farxad siin kara laakiin markaan niyad jabino oo iridka markay ka soo galaan ba aan
muran iyo dagaal iyo qaylo aan kala hor istaagno aabaniyad ma yeelanayo xaajigi gurigu ka laabanaya nolol kaluna iska raasina asagna noloshu ka dhacay adigna waa ka dhacaysa la mushkil faa'iido dhan marka idinku ma jirto marka si asagna u badbaadin kartaa adigna isu badbaadin kartaa appreciation waa ina usuubisa u mahad celin ninkaaga xitaa wax yar xitaa duusa ku sameeyay sometimes waxa laga yaabaa marka tiraahdo wallahi maanta saas baad ii sameysay ma ilaaway waxa ii sameysay wuxuu ku leeyahay waxba kuma sameeyay adiga muhiimadaadi ma ahan inuu wax ku sameeyo ogow ya muhiimadaadu waa in asaga dhiiri gelisaa inuu wax ku sameeyo brito not now romantic surprise ma diyaarina waliyan waxa idin weydiinayaa laakiin su'aal waan su'aasha kaliya oo wareerisa aniga su'aashaas waxay tahay waay loo dhahaa Soomaalida ma taqaan romantic maxaa anaga adduunka naga reebay waligiin ma isweydiisan su'aalahaas dhaqan good exactly haddaba ogaada hooyadan maanta hadaa weydiino dhan hooyada ugu sakeysa anda hooyo aabahay farxad ma ku siiye taan iyo maqribku intuu ka dhacay way amaanaysaa hooyo dhahaysa kuma korin dhaqan romantic ma jirto laakiin romantic muxuu yahay romantic Soomaalidu waxay u faahantay ubax la isu keeno chips la isu gado that is it surprise ka nolosha ninkaaga aasisay ma ogtaa naftaada kow inay ka tahay nolosha ninkaaga aasisay naftaada kow inay ka tahay ma ogtaa romantic horta aad raadinaysa taas kow ma ogtaa naftaada hadaad ninkaaga siisid waa romantic surprise waayo kuma seexan kuma u soo tusin inuu adiga ku helo laakiin calaf kadib maxaad u fududaysaa all jaranjarooyinka uu ku soo maray laaba u fududaysaa Soomaa romantic surprise waxay saacidinaysaa labada qof jacaylka iyo kalsoonida ka dhaxeeya inay isu siyaadaan taada kaleeto understanding ninkaaga idinka dhaxeeya adiga iyo ninkaaga may hashidin gabdhaha codsaday and understanding ninkaaga ma fahantaa asaga ma ku fahmaa ma ahan fahanka ninka aan ka hadlaayo inay tahay cuntada uu baahan yahay oo markuu soo galaa leedahay shaqadii buu ka yimid waxa weyn cuntada hala siiyo ma fahantaa ninkaaga wuxuu jecel yahay ma fahantaa ninkaaga wuxuu neceb yahay ma ku fahmaasa asaga haduusa ku fahmin see u tusi kartaa inuu ku fahmo waa ina ogaataan horta wax walba adiga markaa bilowdi buu asagana ku dhaqmaya tusaale waxa idin ah run ahaantii dumarku waa maskax waxa ku jirta ilaahay xalkeed og yahay dumarku dadku waa yasaan raggu waxa laga yaabaa dumarku inay yasaan oo ay dhahaan gabar baa tahay wax saa u sii weyn meesha kuma haysid laakiin maskaxda idin ku jirta wallahi alcadiim nagu jirta waa ku maamuli karnaa adduunka maanta hadii loo dhiibo waqti waxa jirta rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo asxaabtiisa bay'a la galay quraysh oo yahuud ahayd quraysh waxay rasuulka condition shuruud kaga dhigtay alayhi salatu wasalam يعني حجك سند يعني سند بس حجنيسان سند بس حجنيسان يعني بيع عادي بشروط أدق كحرتها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو يمد وحي بقى يمد حكيري أمر ضدك على إنه حيرتان رسول الله الله حيرته رسولك من برك يوفوله مركز وحده هاي أصحابتك كل جن هلا حيرته وين حناقين أصحابتي رسول الله وأنت قال هذا أمركود ما فلينه واحد كستدرع ما يلين رسولك أسوي حناقصن بقصالته مسلمة ووجهه جدودين هاي عبرسين هاي بحيث محاق وقول على رسول الله بحيث أصحاب تيدي بقى ما أنت هذا الآن إري جديد أنت قلت جاي بقى إري حيرته مكسيح ما حيرناه مكسيح رسول الله حناقنه تبناك وبحدت ونك كوي حير جرو ويرتد حيرة رسولك عليه الصلاة والسلام توبة حيبه ونك ويرن جرو وحيرتي مركي أركان رسولك من جد اسكو بلابي كل قد من جد بيقول أردن حتى قارب أساس صراحة حاب بوينت جا ولا جيدا هرت واحد قف كقرب تدبرك هرا أذيك رسولك ونبر عليه الصلاة والسلام أذيك وأنا اسكبلو ذا تس markaas laazim uu ka iimaanaya qofkaas war xataa nin kasta oo maanta nagu jiro oo aan waxba fahansanin oo nolosha wax ka aqoon oo dhaga xiran oo markii horena guriga hooyadiis amiirka ka ahaa gurigan markuu yimidna isu qabo inuu wali amiirka yahay adaa bedeli kara simple way
caruurtaada aabba fiican waa u samayn kartaa haddaa adigu ugu talagashay inaad u samaysid marka ma fahamtay ninkaaga wax uu rabo muxuu jecel yahay in loo sameeyo muxuusa jeclayn ragga qaar baa markay yimaadaan oo shaqada ka yimaadaan waxaysa jeclayn baa yidhi inay hadlaan asalaamu calaykum haye caruurta seeyihiin wuu galayaa musqushu wuu qubaysanayaa cashaduu cunayaa direct go to the bed sariirtu turu su-aadaya waxaa laga yaabaa ninkaas inuusan jeclaynba in lalaha hadlo dumarka qaar gabdhaha qaar aa sheekaysano waxaan ku idhi gabar baa beri ii sheegaysay waxay tihi wallaahi ninkayga waan jeclahay bay tihi aad baan u jeclaha haye asagana aad buu ii jecel yahay weliba waxaan hubaa bay tihi 99% inuu ii jecel yahay waan farxay waxaan is iri maasha allah maanta waxaa heshaan kuri qofka keliya nolosha kuu sixi lahaaba waxaan ku idhi maxaa ku kasbatay abaaya ninkaaga see u kasbatay saa u sugaayey ubax baa u keena iyo waraaq baa u qoro waxay iigu jawaabtay ninkayga waxaan isku dayaa 100% inaan fahmo waxa uu rabo 100% waxa uu rabo xaaladda uu taagan yahay waa isku dayaa bay tiri inaan fahmo suu asaga ii fahmo wuuna ii fahmay bay tiri tusaalahaas ii soo qaatay waxay tiri markuu soo galo ninkayga waxaa iri waa sheekaysanay marka waxay tiri markuu soo galo cashan siiya haye xabiibi saa tahay ma fiican tahay fiican waan cashaynaa shib sariirtiisuu aadaa faamiladiisa ama asxaabtiisa waxa uu maanta maalinkaas ka dhexeeyay arrinta buu la hadlaa waxaa laga yaabaa inuu iska seexdo bay tiri yacni inuusa aniga ii sheekeen baan ka wadaa ujeedadeeda bointigayga haye marka waxay tiri waa arkiba tiri dabeecadiisa inaysaan tahay wuu jecel yahay soo maaha ma ka qasin bay tiri markuu seexdo anigana geestayda kala markinta u tuurtaa waaga markuu bariya nabad haye markaasa wixii nolol idinka dhexaysa waa meesheeda waxaan ku iri oo fiiri nin maanta dhan iga maqnaa baa iri oo maanta dhan shaqo ku maqnaa markuu hadda yimi hadduu barkiinta xagga u jeestay maxaa ani waaba qaylinayaa ku waxaan leeyahay waraa adab dirnaa ma hadashid waa saa jecelnaa soo maha laakiin maxay tiri no way bay tiri ninkaaga isku day inaa fahantid haddaa fahantid wuxuu jecel yahay adigana markaas wuxuu kaa dhigayaa priority qofka koowaad uu fahmo mar walba taada kale ninkaaga xooji mar walba garabkiisa waxaa u taagan tahay inaad mar walba qof ka soo saartid ninkaaga wuxuu noqonayaa haddaad qof ka soo saartid geesigii birito maskaxiyan xataa wuu u dhismayaa ninkaaga xitaa maskaxiyan haddaa mar walba see u soo saari kartaa haddaad u sheegtid waxyaabaha uu ku fiican yahay ninkaaga meel kasta uu ninkaaga ku fiican yahay u sheeg horta ma ogtahay waxaa ku fiican tahay saas horta ma ogtahay kan iyo kan baa ku fiican tahay deeq sidaa taha waxaan kugu jecla daacad baa taha waxaan ku jecla nin run badan baa taha waxaan kugu jecla nin kalsoonida aad iigu kalsoon baa taha waxaan kugu jecla wallahi aabba fiican baa taha weligii aabba kula mida ma arag weligii nin kula mida ma arag umalayn may gabar aniga ay noloshan inay haysato you see asaga markaas waxay u noqonaysaa strength yani way u ziyaadinaysaa quwadii ku jirta xataa way ziyaadaysaa wuxuu isleeyahay waa run wallahi nin kaa fiican ma jiro adduunka wuxuu isleeyahay aabba kaa fiican ma jiro adduunka muusey kaa fiican adduunka ma wala helaba soo ma yani ninkaaga mar walba anaga waxaan ka bilownaa rasuulka alayhi salaam wuxuu yidhi dumarka waxaa naarta u badiyay buu oo u badiyay buu yidhi si kasta oo wanaag aad ugu samaysid maalinkaa khalad ka gashid bay wanaagii dhan hilmaamaysaa markaas waxay soo xasuusanaysaa mistake yarta aa ka gashid baclada weligay wax fiican ba kuguma arag ilaa maalinkaa ku bartay ilaa hadda balaayo iyo dhibaata intaa nagula kor taaganta soo ma exactly for example hadda tusaale waxaa ku ah marka uu rasuulka alayhi salaam sayr waana xaqiiqo jirta wanaagii ma xasuusano ee nimanka noo falaan laakiin waxaan xasuusanaa weaknesskoodii intoodii xumayd xaleena maxaa saa u samaysay wax adduunka aniga farxad kuguma helin imisaan farxad ku siinayo ku leeyahay marka oo waxaan ku siinaya dhanka kacmiya waxba farxad kuma siin maalinkaas wuxuu bilaabayaa farxaddii uu kugu haystay inuu kaa jaro laakiin maalinkii weakness uu yimaado waxaad tiraahdaa qaali maanta maxaasaan isaan weliga kuguma arag dhee intaad ihlad iimaada samayn waxaad ku encourage garaysaa ku dhiirigelaysaa weliga khaladkaan kuguma arag adoo samaynay maxaa u samaysa maanta markaas wuxuu isleeyahay walaa khalad aada geli jirin baa maanta gasha laakiin markaa sheekada uga bilowna warheer weligay farxadaada ma arag oo maalinkaa ku bartay ilaa hadda dhibaatay problem baa kuula joogaa hadda iyo kow maalinkaas wuxuu bilaabaya farxaddii uu ku siin jiray awal daacaddeeba ka ahayde cancel inuu kaa saaro oo mid farxad uu siiya uu kaa raadsado soo marka please waxaan nimankeena ku encourage garayn karnaa ama aan ku xoojin karnaa anagoo u sheegna waxyaabaha ay ku wanaagsan yihiin mar walba
haddaad saa samaysid asagana mar walba wuxuu isku dayaa khalad kasta aad ka gashid ama xumaan kasta aad samaysid inuu daboolo wanaagaaga uu kugu soo celceliyo daacad iska ah mar walba taas way ku wanaagsan tahay waayo waxa weeyaan waxay u wanaagsan tahay gurigaaga haddaad qof daacad tahay Soomaali daacad waxay u taqaanaa hadda kor waa idin sheega daacad waxa loo yaqaanaa gabdhaha masaakiinta ah oo iska aan kala jeclaan hadduu shan habeen yimaado iyo hadduu hal habeen yimaado iyo hadduu wax keen iyo hadduu wax keen baxlo leeyahay wallahi waa gabar daacad sawan halka intuu istaagu leeyahay wallahi gabar daacad ah haysta daacad taas baa daacad xaqaagana dhacso xaqiisana si xaqaagana dhacso kiisana u ogolo oo si markaas honesty baa tahay xaqiyaamin alacna xaqirin wanaagsta oo ku sameeyaa ka xaqirin ilaa xad adigna u sameey daacad marka ahaw oo mar walba ka run sheegaysa waxa ninkeeda u sameynayso sidoo kale ninkaaga marka isku dhacdaan oo mugdi uu idin dhex yimaado intaad ordilad oo la tashaneed walaasha waa mid dadku ugu dhow sama saaxiibta hooyada hala tashanin asaga isa soo hor fariista xitaa hadduu taagan yahay xaaladda sariirta xitaa hadduu joogo la hadal waxaad tiraahdaa khaladkaasaan kaa tirsanaya aniga khaladkaasaan kaa tirsanaya maxaa ka qaban kartaa maxaa inoo xal ah ma aan micnaheed inaad dhahdid khalad baan kaa tirsanayaa aniga adduun waxa weeyaan furitaan waxaan ahayn oo imaraya male Allah subxaanahu wa ta'aala muxuu yiri agteeda waxa loogu jaceylka badan yahay waa guri islaam markii la dhiso waxa loogu nacaybka badan yahayna waa markii uu dumaayo guri dumay diiniyan markaa ka soo tagtid yuu faa'iido u leeyahay waxa maanta halkaan dhoobay guri duman hooyo aabba kala tageen maxaa noo dambeeyay hooyo walba 5 cunug iyo 2 iyo 7 cunug waxay haysatay inay la soo cararto banaanka wax ugu gado Soomaa guri dumay cid uu rooya ma lahan ilaasho gurigaaga mar walba gabaray oo ku taxadar gacanta midig inaad ku qabsatid gacanta bidixna noloshaada kala ku qabso ninkaaga khalad markuu ka galo inta ku degdeg leeyahay walaasha ama saaxiibta walaasha waxa laga yaabaa inaysan ogeyn wanaaga ninkaaga uu ku hayo walaasha waxa jirta waxyaabo badan ay og tahay iyo waxyaabo badan ay soo ogeyn adiga kaliya baa og waxa ninka ay adiga idinka dhaxeeyo oo wanaag ah walaasha waa qof kula dhalatay xumaana kula marabto iyo dhib markay aragto ninkaaga oo yaani hadallada iyo isbedel kula imaanaya maxay kugula talinaysaa naaw basaasu keena muxuu ku maleeyay inaad tahay waxa kuma malayn ayada wax ka dhigtay walaasha laakiin waxa kuma malayn qof caadi oo khalad uu galaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay adoomadeed waxa u jeclaa qofka intuu dambaaba ka soo laabta dambiga Soomaa khalad uu galaa adiga waa khaldami kartaa asagna waa khaldami karaa hadaad noqotaan laba qof oo mar walba khaladaadka iska galan isla sheer gareeya oo mar walba maxaad iga haleysay iyo maxaad ii wanaajisay runaantii noloshiina guul waa ka gaaraysaa laakiin haddii mar walba noloshiina inta isku dhacdaan qof saddexaad u idin dhex yimaado never you will never get a solution weligaa xal ma helaysid ugu dambeynna gurigaaga wuxuu noqonayaa guri furinkiisa laga tashaday waayo xumaantiisa iyo wanaagiisa waa laga tashaday sidoo kale waxaa jirta waxa aan dhahno waa ku eedanaa ragga Soomaaliyeed caafimaad ahaanna waan idinla wadaagaya insha Allah waxaan dhahnaa ragga Soomaaliyeed garasho ma laha laakiin maxay leeyihiin garaacasho yaani ninka Soomaaliyeed waxyaabo badan kuma garanayo ilaa aad weydiisatid asagii Soomaa waxaan dhahnaa muxuu u garan waayay sabab muxuu ninka u garan waayay mar walba ma wuxuu iga sugaayay in aniga wax weydiiyo ma wuxuu iga sugaayay in aan waxaas u baahanahay muxuu ii fahmi waayay waxa aan rabo Soomaa laga yaabaa gabar la qabaa tahay gurigaaga joogtaa arrin baa kugu soo korortay arrinta kugu soo korortay ninkaaga koow hadaad u sheegno aad dhin arrintaas aad timid horta miyuu ogaan karaa waa maya second hadaa u sheegtid xataa waxa laga yaabaa inuusan ujeedo badan ka yeelan oo arrinta marka u bandhigto aad tiraahdo niyo saasa jirta yaani caawitaan baa ka rabtay laakiin indirect wax u sheegto ma uu ku fahmin wuxuu ku maleeyaa un problemka inaad yaani la timid un aad u sheegaysid kaliya bartu kaaga si dhaqaaqay arrintaas ma dhacdaha wallahi I'm sorry anaga marka waxa raadinaynaa inuu ninka dhibkina la fahmo faadan familkayga dhib ku dhacay ninkayga waxaan leeyahay waa inuu reerkeeni waxa waa inuu dhaasay wax jiraan waa inuu aniga waxaan iyo asaga wada joogna waa in yaani raggi badankood garashadii waa ku yar mental ahaan markii loo fiirsho ragga waxa ku badan grey maataga aad ugu badan ragga
annagana waxaan ugu badan white matter wax la dhaho maskaxdeena raggu waxay mar walba focus gareeyaan hal shay ma focus gareeyaan laba shay laakiin dumarka ilaahay hooyo ugu talagalay training baa ilaahay baa marka hore kusoo train gareeyay guri baa joogtaa hooyaa lagugu talagalay caruurtii baad ilaalinaysaa iskuulkii baa u diraysaa asagii baa ka fikiraysaa naftaadii baa ka fikiraysaa gurigiini baa problem ka yimid waa xalinaysaa you see meeqa point aan isku haynaa ilaahay maskaxdeena marka hore laaj buu ka dhiga wuxuu ugu badiyay wax la dhaho white matterkii ayagii waxay leeyihiin raggi hal focus wax labaad kuma dari karaan focuskiisa waa inuu xafiiska tago ku soo waca oo ku dhawaaya gurigii maanta maxaa ka dhiman aad tira waxaas ka dhiman that is it he can't focus many things nimanka wax badan ma focus garan karaan soo marka u sheeg u tilmaan ma aan weakness ay leeyihiin waa psychologically ilaah baa ku abuuray hadduu ninkaa wax badan garan waaye u sheeg xasuusi qaali waxaas baa garan weysay dheh wisa saxaya markaas hadduu nin yani saxan hadduu yahay sidoo kale ninkaaga u duceey mar walba asagana ha ku duceeyo isu duceeya mar walba marka la isu duceynayo ma ahan markay balaayo timaado in la isu duceeyo markii biilku yaraado oo balaayo dhacdo beelada gabadha ilaah urisaha qadar rabbiyo adaa baxsha sooma laakiin waxaa laydinka rabaa see ninkaaga yani power see ku yeelanaya awood see ku yeelanaya haddaad u duceyn mar kasta maqashii markuu baxaya adoo shaatiga u xiraya shaatiyaasha ma u xirnaa horta adoo shaatiga u xiraya adoo shaatiga u xiraya maqashii ninkaaga maxaa ku dhahaysaa ilaahay ii kaa soo nabad celiyo ilaahay waxayaan tallaabo kastoo aa qaadaysid ilaahay ka dhiga tallaabo khayr badan soo noqo adoo nabada you see shaqada allah kuu fududeeyo waa runteed waa u duceysa shaqada allah kuu fududeeyo you see because of waa maqashinaysa waxaa leedahay weliba asaga waa maqashinaysa waxaa leedahay ilaahu ninkayga ii xifdi rabbi raxmaan waa ogtahay saa u jeclahay kama maarmeen